النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. السلام عليكم. waxaan ku soo jiray xaaska rasuulka sallallahu alayhi wasallam ahna inaga hooyooyinkeen maanta insha Allah waxaynu qaadan doonaa xaaskiisa 9 baynu qaadan doonaa dabcan 7 waynu soo maray haddana waxaan rajeynayaa 7 aynu soo maray inaad magacaantoodii dabcan aad wada garanaysaan bal hal mar markaa qof kastaba adoo video hada daawanaya bal maskaxda igala akhri inaad 7 hore soo maray bal inaad garanayso marka waan bilaabay maskaxda iyo igala akhri insha Allah kum xasan nidi Khadija bint Khuwaylid Sauda bint Zam'a عائشة بنت أبي بكر حفصة بنت عمر زينب بنت خزيمة زينب بنت خزيمة أم سلمة ومقعدوها محي مقعدوها هندي أوكي أم سلمة تي محوها حاسكي الضواد إنه مالك ورسول قادنا محي هيد زينب بنت جحش بعيد ما أنت ندرو إحنا قادنا حاسكي سديدات أو جويرية بنت الحارث يا حاسكي سقالات أو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان هذا جويرية بنت الحارث magaceeda caadiga ah markii hore wuxuu ahaan jiray barra ayuu ahaan jiray dabcan xaaska kaliya ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam magaca ka bedelay iyada kaliya ma ahayn waxaan hore u soo maray in sidoo kale Zaynab markii hore barra la oran jiray rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ka bedelay isla saas oo kale ayaa Juwayriyana waxa la oran jiray markii hore barra ayaa la oran jiray rasuulka ayaa markaa Juwayriya u bixiyay hadaba Juwayriya oo markan hore la oran jiray barra bintul Harith ibn Dirar la oran jiray waxay ahayd gabadh u dhalay markaa qabiil odayga u sareeya markaa suldaanku kale la oran karayo qabiilka markaa odayga suldaanku u ahaa gabadhiisii ay ahayd aabaheedna markaa wuxuu ahaan jiray odayga u sareeya booska suldaanku kale markaa ugu jira qabiilka la oran jiray Banu Mustaliq taasoo markaa ka dhigan in Juwayriya bint al-Harith markaa ay ka soo jeedo qoyska markaa nasabka leh haddaba qabiilkaas Banu Mustaliq taariikhda hijrigu markii sanadkii 6 mareysay ayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa soo gaaray war sheegaya qabiilka Banu Mustaliq oo markaa duleedka Madiina ah oo Madiina isu dhawaa in markaa diyaarinayaan inay muslimiinta markaa dagaal ku soo qaadaan haddaba qabiilka Banu Mustaliq iyagoo arinta qorsheynaya oo wali ku dhaqaaqin ayaa rasuulku markuu maqlay isaga ayaa kaga horeeyay oo markaa iyagoon iska wareenin ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam isla markiiba markaa dagaalka ku kadiyay arrintaana dabcan muslimiinta iyo saxaabadii way ku guuleysteen qabiilkan markaa Banu Mustaliqna waxay markaa degi jireen ceel aan ahaa oo la yaqaano oo la oran jiray markaa Muraysic la oran jiray marka subaxa ay markaa muslimiinta dagaalka ku soo kadiyeen sida aysan markaa qabiilkaasi isaga wareenin dumarkooda xataa subax hore ahayd biyaha markaa iska soo dhaansanayeen markaa isla markadiiba way ku kadiyeen dagaalkii khaswadana markii dambe waxa loogu magac daray markaas ceelka ay degayaan khaswatu Muraysic baa la yiraahdaa sidoo kale siirada waxa loo yaqaanaa khaswatu Banu Mustaliq oo qabiilkooda markaa loogu magac daray muslimiinta markaa khaswada way ku guuleysteen dhacdadan iyo khaswadan oo faahfaahsana dabcan insha Allah markaynu siirada aynu hore ugu socono markaas aynu si fiican ugu gali doonaaye khaswadana dabcan laba shay oo dhaxdhacay dartood ayaa markaa ilaa 3 shay baa la oran karayaa ayaa markaa ka dhigay khaswadan in khaswa caan noqoto koo horta hooyaden Juwayriya bint al-Harith halka ay ka iman doonto rasuulku uu ka goorsan doona waa khaswadan sidoo kale waxa caan ku tahay ayado quraan ah oo fara badan ayaa markaa khaswadan markii laga soo noqonay ee la soo socday markaa soo degay gaar ahaan suuratul munaafiquun oo Abdullah ibn Ubay ibn Salul waqtiga soo degtay insha Allah iyada faahfaahsan qaybaha dambe ku arki doonaaye haddaba musadar al-Haakimka waxa ku sugan in markaa bari dambe la soo wariyay markaa Juwayriya inay markaa ku riyootay maalinta aysan muslimiinta iyo rasuulku aysan qabiilkooda ku soo duulin 3 cisho ka hor inay markaa ku riyootay meeshoodii ay degayeen duleedkoodii oo markaa dayax u ka soo baxayo riyadaas markii Juwayriya ku riyootay 3 cisho kadibna rasuulka iyo muslimiintii waa yimid oo dabcan ka dhignaa dayaxa ay ku riyootay ee soo baxay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayuu ahaa waqtigana muslimiinta marka soo weerareen marka Juwayriya iyo qabiilkeedii marka soo weerareen dabcan waxa jiray dad aad u koobnaa oo qabiilkaas marka Banu Mustaliq ka socday oo marka isku day inay dagaalamaan dadkii marka isku day inay dagaalamaan meesha ku dhintay waxa kamid ah marka Juwayriya ninkeedii oo ahaa marka wiil ilmaadeer ahayaan oo isqabeen marka dhowr qof oo reer Banu Mustaliq ay marka khaswada ku dhintay Juwayriyana ninkeedii sida ayuu ku dhintay oo marka saasi carmale marka ku noqotay reer Banu Mustaliqna markii la soo weeraray Juwayriya aabaheed maadaama oo qabiilka marka uu madax u ahaa isaga iyo marka in yar ciidan la socotay iyagu marka ogaadeen way baxsadeen meeshii way iska carareen intii kale marka saxaabadii waxay marka qabsadeen alaabihii laga tagay iyo qaniimadii iyo sidoo kale dumarkii ay marka saxaabadu soo kaxaysteen Juwayriya ayaa marka ku jirtay markii hadaba xoolihii iyo dumarkii marka xaqa reer Banu Mustaliq laga soo kaxaystay ee Madiina la keenay Juwayriya oo markan barraana waxa marka la siiyay saxaabi la oran jiray Thabit ibn Qays
Juwayriya markii haddaba Thaabit la siiyey isla markadiiba Thaabit waxay ka codsatay mukaataba ay ka codsatay mukaatabaduna waxay dabcan waqtiga qofku markuu adoon noqdo oo kale qofka marka uu adoonku u yahay ee markaa qabsada ama sidaa ku qaata wuxuu kula heshin jiray uu ku oran jiray madax furashada intaa la eg ayaan iska bixinayaa muddadan ii qabo in macnaha oo taas marka ka dhigan ima adoonsan kartid waxaan ku siinaya lacagta intaa la eg saa darteed waad sii deynaysaa saas oo kale ay markaa Juwayriya Thaabit kula heshiisay Thaabitna markuu arkay maadaama dabcan waa dareemi kartaa Juwayriya waa gabadhii uu dhalay qabiilka Banu Mustaliq ninkii dhanaa ee suldaanku waa gabadhiisii weeye lacagta ay dabcan ay ku leedahay dee waan kula heshiinayaa dabcan way siinaysaa isageena markaa uu ka aqbalay waxayna markaa ku heshiiyeen 7 waqiyadood oo silfara ay markaa ku heshiiyeen qodobkana markay ku heshiiyeen dabcan milkul yimiin muusan u qaadanin Thaabit oo sidaas milkul yimiin muuna u isticmaalin sidii markaa ku heshiiyeen inay lacagta intaa leeg markaa iska bixiso isla markii haddaba ay markaa Juwayriya go'aansatay inay markaa ay guda gasho falowgii ay markaa inta lacagta ay ku soo qaadato ama ha noqoto ama si kale ha noqoto inta ku soo qaadato ay Thaabit markaa u siin lahayd bay gashay haddaba markay doonaysay inay lacagta ay sidaa ku guddo ayaa waxyaabihii ay samaysay waxa kamid ahaa waxay u timid markaa Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay u timid haddaba arrintu markii halka maraysay dabcan arrintan isla Caaisha ayaa inoo soo warinaysa Caaisha markaa arrintan iyadoo ka warramaysa waxay tiri Juwayriya waxay ahayd gabadh qurux badan shakhsiyadna leh markii ay haddaba ay dadka la hadlaysay ay ku lahayd lacagta ay iga sabixinayaan markaa aan siiyaa oo kale markay saas lahayd qof walba oo markaa Juwayriya arkaa oo la hadashaana quruxdeeda iyo shakhsiyadeedaba dabcan uu la yaabay oo soo jiidasho ay lahayd markii haddaba ay arrintan dadka kala hadlaysay dabcan inay hadda sidan u hadasho dadkeeda u hadasho iyadoo ay tiraahdo muxuu ahaa milkul yimiin oo kale ha noo isticmaalina lacag baan waanu ismadax furasho lacag baan iska bixinaynaa inay sidaa u hadasho dabcan waxa ka keenaya waad garanaysaa sababtoo ah waa gabadhii uu dhalay Banu Mustaliq dabcan ninkii madaxda u ahaa gabadhiisii weeye inay markaas sidaa u hadasho dadkeeda u hadasho dabcan xaq bay u leedahay Caaisha hadda waxay tiri markii dadka sida ula hadlaysay ayaa markaa rasuulku meel jooga markii u soo gashay aniguna aan sida u arkay isla markaan sida u arkayba isla markiiba waa naqay sababtoo ah bay tiri waxaan ogaa waxa aan Juwayriya aan ku arkay iyo sidaan ugu markaan arkay waxaan ku arkay inuu rasuulkuna uu arkayo macnaha sidaan u arkay oo kale inuu rasuulku uu arkayo ayaan ogaa riwaayadahan oo kale dabcan markaad aragto ama aad maqashana kama dhigna dabcan in hadda rasuulka sallallahu alayhi wasallam sharaftiisii arrintan ay wax u dhimiso laakiin riwaayadaha noocani waxay inoo muujinayaan bini'aadamtinimadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay inoo muujinayaan haddaba Juwayriya markaa rasuulka u timid waxayna ku tiri rasuul Allah waxaan ahay Juwayriya oo macnaha dee markii hore barre ku tiri laakiin inagu hadda Juwayriya odhanahay waxaan ahay markaa barra ama Juwayriya ayaan ahay waxaan ahay gabadhii Al-Harith baan ahay aabahayna waa sayidul qowm oo macnaha tolka iyo qofkii sayidka u ahaa ee suldaanka oo kale u ahaa weeye waana ogtahay rasuulullah sallallahu alayhi wasallam waxa igu dhacay waad ogtahay aniguna aad iyo aad baan uga sareeyaa oo uga sharaf badanahay inaan adoon noqdo haddana Thaabit waxaan kula heshiiyey 9 uqiyadood baan markaa aan kula heshiiyey sidaa darteed adigana hadda waxaan kuugu imid arrintaa bal inaad iga caawiso oo wax igala qabato oo dabcan ay ka wado inaad arrinta aad iga bixiso ama deen ha ahaato ama hadiyad ha ahaato ama qaab kale haatee inaad arrinta aad wax igala qabato ayaan doonayaa dabcan arrintanina waad aragtaa waa arrin gebi ahaanba bannaan waana heshiis dabcan dhinac walba ka bannaan oo xalaal ah markaas haddaba ay rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ku yidhi ka waran haddii aad arrinta aad iga codsatay wax ka wanaagsan haddii aan kuugu bedelo markaas ay tidhi haye waa maxay waxaasi wuxuuna ku yidhi dhowrka wiqiyadood macnaha Thaabit ku heshiiseen aniga ayaa kaa bixinaya inta markaan kaa bixiyana aniga ayaa ku guursani marka hadda dabcan rasuulka sallallahu alayhi wasallam arrin buu u soo bandhigay oo wuxuu ku yidhi arrinta ayaa waxaa lagu leeyahay waan kaa bixin intaa kadibna xaaskayga ayaa noqoni Juwayriyana markii hore rasuulka sallallahu alayhi wasallam arrin codsi ay ula timid isaguna markaa codsiga ay ula timid codsi kale ayuu markaa ugu bedelay dabcan markaasna Juwayriya bint al-Harith iyadoo markii codsigaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam way ka aqbashay oo hayay tiri markii ay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo arrintii lacagtii markaa uu ka bixiyay haddaba markii magaaladii uu ku faafay in rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu Juwayriya bint al-Harith uu guursaday ayaa markaa dadkiiba haddaba isla hadlay waxayna isweydiiyeen oo isku yiraahdeen haddii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu Juwayriya uu guursaday inaguna markaa dadkii kale ee reer Banu Mustaliq ahaa inuu soo qabsanay dadkaasoo hadda rasuulka sallallahu alayhi wasallam u noqonaya dabcan dumaashiye iyo sidiye u noqonaya dadkaas markaa miyaynu inaguna markaa adoonsi ahaan aynu haysananaa sidaa darteed waynu wada xoreynaa baa la yidhi qabiilkii markaa Banu Mustaliq dadkii laga soo qabsaday oo dhan siday u dhannaayeen saxaabadii markii dhammaantood waa la wada xoreeyey reer Banu Mustaliqna siday u dhannaayeen markaas maalintaas la wada xoreeyay ilaa waxa la sheegay ilaa 100 qoys wax ku dhow ayaa maalintaas la xoreeyay Caaisha arrintan markii ka warramaysa waxay tiri ma garanayo gabadh sida Juwayriya oo kale asxaanka iyo wanaaga ay tolkeed u sameysay
wanaag ka weyn oo wanaagga ay Juwayriya dadkeedii iyo tolkeeda u sameysay gabadh kale oo tolkooda sida wanaag inta leeg u sameysay ma garanayo. haddaba markii rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu Juwayriya guursaday ayaa dabcan magacii Barra ahaa uu ka bedelay oo Juwayriya ayuu ugu bedelay. dabcan magaca Barrana hore waan soo sheegnay oo qof aad iyo aad u wanaagsan weeye. sidoo kale rasuulku xataa wuxuu yirdidanaa hadhow salahan haddii uu imanka iyadoo Barra ah uu gurigeeda ka soo baxo oo la dhaho rasuulku gurigii Barra ayuu ka tagay ama rasuulku Barra ka tagay macnaha ka dhalan wuxuu noqonayaa rasuulku wanaagii uu ka tagay ayuu noqonayaa. waa magac markaa dhinacyo badan marka laga eego aan yar habboonayn. sidoo kale dabcan xataa waxaa jira in culimadeeni waaweyneed tusaalahaan Imaam Maalik oo kale inaysan markaa jeclaysan jirin ama ay mararka qaar diidi jireen oo kale ay oran jireen magacaanta lama isticmaali karayo. tusaalahaan magacyada malaa'igta iyo magacyada quraanka iyo lama isticmaali karayo oran jireen. tusaalahaan oo kale magacyada malaa'igta oo kale Jibriil, Mikaa'il ama magacyada quraanka ku jira tusaalahaan Yaasiin oo kale, Isra oo kale. sababta uu dabcan Imaam Maalikna magacaanta in la isticmaalo magacaanta malaa'igta ama quraankana sababta uu u diidi jiray waxay ahayd haddii tusaalahaan wiilkaagu hadda Yaasiin la yiraahdo oo doonaysa wiilkaaga Yaasiin la yiraahdo inaad canaanato wiilkaaga maxaad ka oranaysaa? tusaalahaan waad canaanaysaa waad hanjabaysaa waxaad ka oranaysaa tusaalahaan kale waxaad ka oranaysaa Yaasiinow waad xumaatay sidan maadan ahaan jirin Yaasiinow qof xun baad tahay Yaasiinow qof wanaagsan ma tiid. macnaha qof kale markaa uun kuma maqlaynin oonan macnaha wiilkaaga garanaynin ama arrintan fahansanin hadduu intaa kaa maqlo adigoo leh Yaasiinow waad xumaatay Yaasiinow qof xuma Yaasiinow macnaha dabcan waad dareemi kartaa in xogaa marka wuxuu leeyahay Imaam Maalik wuxuu leeyahay maqaamkii quraanka aysan dabcan ku fiicneen oo marka qofkii oo meel marka laga maqlo Yaasiinow kana noqotay hebelow Isra kana noqotay haya macnaha saas oo kale ay marka u yardiidi jireen. dabcan magacaantana in la isticmaalo xaraan weyn ma aha haddana laakiin culimadaas kale waxay oran jireen si macnaha maqaamka quraanka iyo sharafta quraanka loo ilaaliyo in carruurta magacaantaas kale loo bixiyo ma fiicna oran jireen. waqtigaas oo dabcan rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu Juwayriya guursaday Juwayriya marka xogaa gabadh iska yar bay ahayd oo ilaa 20 jir ay waqtiga ahayd. gurkii Juwayriya hadda markuu dhacay oo dabcan dadkoodii iyo tolkoodii iyo qabiilkii Bani Mustaliq dhammaan boqolaalkii qoys la soo qabsaday dhammaantood markii la wada xoreeyay ayaa haddaba mar dambe ayaa Juwayriya aabaheed Al-Xaarith ayaa markaa soo noqday. isagoo dabcan ma oga in gabadhiisii hadda la guursay dadkii kale la wada xoreeyay arrintaa ma oga. markaa wuu soo noqday isagoo xoolo wada wuxuu doonayay markaa intuu rasuulka u tago inuu bal uu kala soo hadlo oo uu dhaho madax farashada iyo xoolahana qaata gabadhayda iyo dadkayga kale dabcan iisoo daaya khaasatan gabadhayda iisoo daaya inuu dhaho ayuu doonayay. marka haddaba aabaheed Al-Xaarith ayaa markaa xoolo badan markaa keenay Madiina. haddaba markuu uu xoolihii uu soo gelinayay magaalada Madiina duleedkeeda ayuu markaa yara istaagay ayaa xoolihii badnaa iyo geeli u waday ayuu sida u wada fiiriyay. laba haladoo markaa ku jiray ayuu aad iyo aad uga helay. labadiiba markaa intuu xoolihii uu kasoo dhex saaray uu meel gaara uu ku hayay ayuu intii kale markaa soo qaaday. rasuulka ayuu u yimid arrintiiba markaa kala hadlay. markuu sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam ula hadlay ayuu rasuulku ku yiri haye waxaad iga warantaa labadii neefeed intaad ka dhex saartay aad halkaa geysay labadii neefna iga waran buu ku yiri. markaas ayuu Al-Xaarith intuu aad iyo aad u yaabay ayuu markaa halkiiba ka ashahatay oo uu islaamnimadii ku qaatay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam uu rasuulnimo markaa u qiray. sababta abuu yiri arrintan cod kale oo ogaan kartaa ma jirto arrintan qof nabi oo kaliya unba ogaan karaya. Juwayriyana dabcan berihii dambe markaa waxay noqotay xaasaska rasuulka sallallahu alayhi wasallam kuwa aadka loogu yaqaano inay aad iyo aad u cibaado badan yihiin khaasatan inay dikriga aad iyo aad u badan jirtay waqtiyo fara badanna markaa dikriga ay ku bixin jirtay. arrintana dabcan arrinta inoo cadeynaysa iyo dhacdo inoo cadeynaysa waxa weeye in maalmaha kamid ah rasuulka sallallahu alayhi wasallam subax hore iyadoo ah inuu markaa intuu Juwayriya oo soo maray oo arkay goobtii markaa ay ku cibaadaysan jirtay iyadoo fadhida oo halkii dikri markaa ku haysa ayuu markaa soo dhaafay. haddana wuxuu ku soo noqday meeshii gelinkii dambe ayuu markaa ku soo noqday runtii fiirso subaxii meesha uu kaga tagay gelinkii dambe ayuu ku soo noqday. haddana wuxuu arkay ilaa gelinkii dambe intii oo dhan iyadoo isla meeshii uu fadhida ayuu arkay oo ilaa imika iyo waqti iyo saacadahaas oo dhan dikriga iyo cibaadadii ku jirta. markaas ayuu weydiiyay oo ku yiri taban xadiiskan isla iyada Juwayriya soo warinaysay wuxuu ku yiri markaa intii oo dhan halkanaad fadhiday markaas Juwayriya haa ku tiri. markaas ay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku yiri ka warna haddii aan kuu sheego oon ku baro kelmadahaas oo dikri ah oo haddii aad dhahdo u dhigma dhammaan ajirkii aad iyo fadligii iyo dikrigii aad soo sameynaysa maanta oo dhan u dhigma ka warna haddii aan ku baro. markaas ay ku tiri dabcan haa ii sheego ay bar. markaas ay rasuulku ku yiri waxaad dhahdaa subxaana allahi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa ziinata carshihi wa midaada kalimaatihi.
حديث كان طبعا isla Juwayriya ayaa soo warinaysa oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka uu ku leeyahay hadii marka kelmadaha aad marka ku digrido waxay u dhigmaysaa ajirka iyo xasanaadkii aad saaka ilaa gelinka dambe aad meesha ku haysay oo dhan oo ah maxay subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatihi ducadana طبعا waxay ka dhigan tahay oo marka la macnaa ay ka dhigan tahay subhanallahi waxaan leeyahay adada khalqihi waxa uu ilaahay abuuray tiradooda in la eg baan subhanallahi aan leeyahay طبعا makhluuqaadka ilaahay abuuray tiradooda lama tirin karo lama garanay طبعا marka inta in la eg baan subhanallah aan leeyahay warida nafsihi subhanallahina waxaan leeyahay illa inta uu ilaahay muxuu ku raali noqonaya ayaan subhanallahi aan leeyahay wasinata arshihi iyo in la eg culayska arshigiisa in la eg sababtoo ah طبعا carshiga ilaahay waa makhluuqaadka ilaahay abuuray makhluuq waxa uu abuuray waxa ugu weyn waa carshiga eebe marka carshiga ugu weyn ilaahay abuuray culayskiisa in la egna subhanallahi baan leeyahay taasina طبعا waa sababta quraanka ay ugu jirto rabbul arshil cadiim carshiga weyn rabbigiis oo macnaha ilaahay marka uu isu tiirinayo carshiga uu ilaahay uu weyne ku tilmaamay ilaahayna inuu rabbul arshiga yahay ama rabbiga carshiga inuu yahay quraanka 6 ilaa 7 jeer bay ku soo aroortay quraankan sidoo kale waxa ku sugan in maalinta qiyaamaha carshiga eebe 8 malag ay marka ay qaadi doonaan rasuulkan sallallahu alayhi wasallam sidoo kale wuxuu yiri waxa la ogolaaday inaan hal xaqiiqo aan idinka sheego 8 malag ay carshiga ilaahay qaadi doona maalinta qiyaame hal xaqiiqo oo mid kamida marka ayaan wax idinka sheegayaa buu yiri wuxuuna yiri malaa'igta carshiga qaadi doonta mid kamida inta u dhaxaysa dhigtiisa iyo inta garabkiisa inta u dhaxaysa dhigtii garabka inta u dhaxaysa waa fogaan muddo 500 sano ah loo soconayo taasoo ka dhigan dabcan malagaas inuu aad iyo aad u weyn yahay arintaas dabcan inoo muujinaysa carshiga ilaahay ee sida u weyn in malaa'igta sida u waaweynay ee sideed ay marka ay qaadi doonto Juwayriya bint al-Harithna dabcan markii dambe ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam u dhintay nolol aad iyo aad isaga fudud oo marka degan ay marka ku noolaan jirtay waqtiyadii dambe ee saxaabada marka fidnadu ka dhex bilaamatayna iyadoo gabi ahaanba wax lagu amaysan ku yeelanin sidoo kale waqtiyadii dambe waxay ku jirtay marka xasaskii xajka ay soo gutay xajka markii dambe tagay ay marka kamid ahayd waxayna dabcan kamid ahayd xasaska rasuulka kuwii ugu dambeeyay ee geeriyooday ay kamid ahayd dabcan sababtoo ah markii hore ee rasuulku guursanayay gabadh yar oo ilaa 20 jir ay ahayd Juwayriya bint al-Harithna waxay geeriyootay taariikhda hijrigu markay mareysay 56 waqtigaas oo Muawiya oo dabcan khilaafada hayay janasadana waxa ku tukaday Marwan ibn Hakam oo marka dambe isaguna khaliif noqon doona Juwayriyana markii dambe waxa lagu aasay xabaalaha Baqiic al-Gharqad ayaa marka lagu aasay Juwayriya bint al-Harithna dabcan macluumaadka aynu ka haynaa waa intaas oo kaliya sidoo kale xaaskii sagaalaad ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu guursaday ahna hooyadeennii sagaalaad waxay ahayd marka Ramla bint Abi Sufyaan gabadhiisii ay marka ahayd Ramlana dabcan kunyadeeda caanka ahayd ee dabcan kunyada caanka ku ahaydna waxa la oran jiray Ummi Habiba ayaa la oran jiray oo magaceeda Ramla waxa ka caansanaaba xataa kunyadeedaas Ummi Habiba ah ayaa dabcan ka caansanayd Ummi Habiba bint Abi Sufyaan dabcan magaceeda caadiga ah culimada inta ugu badani Ramla ay dhahan halka marka qayb yar oo kamid ahna ay marka oran jireen may Ramla ma ahayn Hindi bay ahayd marka laakiin kunyadeeda ayaa dabcan la isku waafaqsan yahay oo ahayd Ummi Habiba Ummi Habibana dabcan waxay caan ku tahay iyadana caan ka dhigaya waxa weeye waa aabaheed iyo walaalkeed taariikhda islaamkana dadkii ugu caansanaa ee ugu cadcada ay dabcan aabaheed iyo walaalkeedba ay ku jireen aabaheedna Abu Sufyaan ayuu ahaa Abu Sufyaan taariikhda islaamka khaasatan waqtiga hore sidoo dabcan caanka u ahaa wayna wada garanaynaa Ummi Habibana walaalkeeda yari waxa uu ahaa dabcan Muawiya ayuu ahaa Muawiyana dabcan taariikhda islaamka sidoo ugu cad yahay wayna wada garanaynaa hadaba Ramla bint Abi Sufyaan ama Ummi Habiba waxay dhalatay 17 sano ka hor islaamnimada intii aysan bilaabmanin 17 sano ama dacwada islaamka intii aysan bilaabmanin ka hor 17 sano ay ka horeysay taasoo ka dhigan hijradii markii ay dhacaysay Ramla Ummi Habiba waxay ahayd 30 jir waqtigii hore ee hadaba dacwada islaamka ay bilaamaysay Ummi Habiba iyo ninkeeduba waxay kamid ahaayeen dadkii waqtigii hore islaamnimada qaatay طبعا خاصة أم حبيبنا مركا إسلام ماذا قادتي أرين آدي آد وين أدر باحة أي مركا أبيه أبو سفيان أي كون نقطي runtii halkaana waxay nooga baxaysaa aragti ah hadda waa aragti uun in xaqatay Allah yaclame halka waxay nooga baxaysaa aragti ah maadaama Ummi Habiba ay kamid ahayd dadkii waqtiyadii ugu horeeyay islaamnimada qaatay Abu Sufyaan ay gabadhiisii ahayd arintaas ayaa markaa keentay baa la oran karayaa Abu Sufyaan inuusan noqonin markaa waqtiyadii hore ee dabcan intuu islaamnimada qaadanin ka hor inuusan qof muslimiinta iyo rasuulka adag sida Abu Jahl oo kale uusan ku noqonin dabcan waxa keentay in gabadhiisii dabcan uu aadna u jeclaa in waqtiga hore ay islaamnimada qaadatay
Abu Sufyaan dabcan waxaan ognahay intii uusan islaamnimada qaadanin inuu muslimiinta inuu qof waqtiga hore mushrika u ahaa, haddana saasay tahay sida Abu Jahl oo kale muusan rasuulka iyo islaamka muusan uga adkeyn, haddana marka goobaha dagaalka la joogo, laakiin goobta dagaalka dabcan waa goob iska caadi ah, ragguna way wada dagaalamaan. goobaha dagaalka Badar isagaa sababay, Uxudna uu ka qayb qaadanayay, laakiin qof rasuulka ku jeesjeesa muslimiinta cadaadiya jir dila arrimahaas laguma aqoonin. haddaba ninkii markii hore ay Ummi Xabiiba isqabi jireen waxaa la oran jiray Cubaydullaahi ibnu Jaxshi. Cubaydullaahi ibnu Jaxshina dabcan wuxuu kamid ahaan jiray dadweyga kooban ee waqtigii aysan dacwadda islaamku bilaamanin ka hor, dadweygii xunafada ahaa ayuu markaa kamid ahaan jiray. Cubaydullaahi ibnu Jaxshina waqtigaa hore isagu markaa kiristaannimada ayuu qaatay. waqtigaana waxaa lasoo wariyaa dadkii xunafada ahaa ninka ugu da-da yar ee waqtiga dhalinyarada ahaa Cubaydullaahi ibnu Jaxshigan ayuu ahaa. isaguna waqtigaa hore kiristaannimada ayuu qaatay. markii dambe islaamnimada ay timidna islaamnimadii ayuu aqbalay. markii dambena Cubaydullaahi ibnu Jaxshi iyo xaaskiisa Ummu Xabiiba waxay u hijroodeen markaa Ardul Xabash ama Abisiiniya ay markaa u hijroodeen. haddaba markii halka u hijroodeen ayaa dabcan Cubaydullaahi ibnu Jaxshi dib buu u noqday oo kiristaannimadii markii hore uu qaatay ee uu ka soo baxay ayuu markaa dib ugu laba noqday oo sidaasuu markaa ku ridoobay. sidoo kale waxaa lasoo wariyaa in maalintaa uu ku dhawaaqi doono inuu kiristaannimadii uu qaatay maalmihii ka horreysay in habeenada kamid a markaa Ummi Xabiiba ay ku riyootay ninkeedii oo intuu aad iyo aad u falxun yahay, aad iyo aad u xun yahay, aad iyo aad markaa u xanuunsanayo, aduu ninkeedii qof nooc kale ah ay ku riyootay. riyadii markaa fahmi weyday 2 cisho ilaa dhowr cisho kabacdina dabcan wuxuu ku dhawaaqay inuu markaa uu kiristaannimadii uu qaatay oo islaamnimadii uu ka baxay. waqtigaana maadaama Ardul Xabash joogeen markaa wuxuu markaa isku dayay inuu Ummu Xabiibana uu ku khasbo kiristaannimadii, markaa way ka diiday, isaguna markaa way iskaga tegay, iyaduna markaa way ka tagtay, sidii markaa ay ku kala tageen. muddo yar kadibna dabcan iyagoo xagga Ardul Xabash jooga ayuu markaas ninkeediina uu halkaa markaa ku geeriyooday. haddaba goobtaas markaa iyagoo la joogo ayaa markaa Ummi Xabiiba waxay noqotay markaa haweeney carmali ay noqotay. meesha la joogaana dabcan waa wadan qariib lagu yahay. halka haddaba markii la joogay Ummi Xabiibana ay sidaa ay noqotay. dabcan Ummi Xabiibana waa gabadhii uu dhalay Quraysh dadka ugu nasabka sarreeya iyo dadka aadka loo qadariyo gabadhiisii weeye. markii ciidii haddaba u dhamaatay dabcan waxaadna fahantaan horena waan usoo sheegnay in waqtigaa hore in muslimiintaas iyo saxaabadaasiba haweeneyda marka la guursanayo waxa ugu weyn ee la qadariyo marka koowaad haweeneyda lagu doorto markay guurka noqoto waqtigaa hore waxay ahayd haweeneyda nasabkeeda iyo meesha ay kasoo jeedo iyo cidda aabaheed yahay iyo qabiilkeeda ayaa aad iyo aad loo qadarin jiray. Ummi Xabiibana dabcan hadda waa dareemi kartaa Abu Sufyaan gabadhiisii weeye. ayaa waqtigaas haddaba markii ciidadeeda ay dhamaatay ayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam qof markaa ergey ah ayuu soo diray. ergadiina markaa Najaashi buu rasuulka sallallahu alayhi wasallam u soo diray. warqadda markaa uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu Najaashi u soo dirayna waxa markaa ku qorayd oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu Najaashi u sheegayay waxa aan doonayaa Ummi Xabiiba inaan guursado maadaama uu dabcan rasuulkuna uu hadda uu halkaa joogin adiga Najaashiguna adiga ayaana wakiil iga noqonayaa. markii haddaba ayuu Najaashi markaa gabadh kale oo markaa adoon ahayd ayuu markaa Ummi Xabiiba u diray. wuxuuna ku yiri waxaad Ummi Xabiiba ku dhahdaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa markaa ka soo codsaday inuu ku guursado. Ummi Xabiibana markaa waxaa lasoo wariyaa in markii gabadhii adoontahayd markii warka u sheegtay in aad iyo aad ugu farxday. gabadhii adoontahayd ee warka u soo sheegtayna dahab ay markaa ay haysatay xidhnayd in markaa gabadhii adoontahayd hadiyad ahaan ay markaa u siisay. sidoo kale Najaashi waxa uu sameeyay isla subaxii markaa warqadaasi ay soo gaadhay isla habeennimadeedii ayuu markaa wuxuu isugu yeedhay dhammaan muslimiintii ayuu markaa wuxuu ku soo casuumay qasrigiisii iyo loo oran karayo qasriga madaxtooyada loo oran karayo ayuu markaa ku soo casuumay. markuu haddaba Najaashi isugu yeedhay ayaa markaa Najaashi baa kacay sidii isagoo rasuulka sallallahu alayhi wasallam wakiil ka ah oo kale ayuu markaa intuu kacay u istaagay. dhinacii Ummi Xabiibana waxaa ka istaagay markaa wiili markaa ilmaadeer ahayn baa ka istaagay sidii ayuu markaa uu markaa guurkoodii ama meherkoodii markaa uu ku dhacay. markaas ayuu Najaashi yidhi aniga ayaa markaa meherka rasuulka ka bixinaya, anigoo rasuulka hadiyad ahaan uga dhigaya, aniga ayaa meherkii ka bixinaya buu yidhi. wuxuuna markaa hadiyad ahaan u bixiyey. dabcan waa dareemi kartaa waa boqorkii hadda inuu lacag aad iyo aad iyo wax aad u weyn inuu bixinayo waa dareemi kartaa. wuxuu markaa bixiyey 400 oo diinaar ayuu markaa Ummi Xabiiba ka bixiyey. Ummi Xabiibana waxay ahayd markaa xaasaska rasuulka oo dhan xaaskii markaa ugu meherka badneed ay ahayd. dabcan meherkeeda sababtoo ah boqor Najaashi ayaa bixiyey. nikaaxeeda markuu dhamaaday ayaa muslimiintu waxay yiraahdeen intaad baxdaan iska noqday bay yiraahdeen. markaasuu Najaashi ku yiri xagee tegaysaan? markaas yiraahdeen dabcan way dhamaatay oo waanu baxaynaa. markaasuu Najaashi ku yiri
ma habboona in nikaax nebi uu dhaco oo kadibna aan cunto la cunin, ma habboona. laakiin waa in waxaa khasabana inaad cuntana ay jirto waxna la cuno. halkiina markaa way sii joogeen cunto markaa boqortooyadii cunto markaa lagu sameeyey madaxtooyadii ay markaa habeenkiina halkay ku cuneen saxaabadii. nikaaxii Ummi Xabiiba iyo rasuulkuna dabcan waxuu ahaa nikaaxii ugu qaalisanaa, ugu casuumaada fiicnaa, ugu cuntada wanaagsanaa, meesha ugu wanaagsanna dabcan ka dhacay. laakiin ardul xabash halkaa ka dhacay oo rasuulku uusan waqtigaa joogin, laakiin saxaabadii halkaa waqtigaa joogtay dabcan aad iyo aad bay ugu baahnaayeen maadaama waddan qariiba ay joogaan in arrintaa iyo wanaagga intaa leeg loo sameeyo. runtii aad iyo aad bay ugu baahnaayeenoo si fiicanna habeenkaa way ugu farxeen. dabcan aroortii markii ay noqotay ay markaa muslimiintiina markaa halkii meeshii madaxtooyada markay kasoo baxayeen ayaa Najaashi Ummi Xabiiba wuxuu hadiid ahaan u siiyey gabadh yar oo markaa adoona oo markaa u shaqaysa ayuu markaa hadiid ahaan u siiyey. gabadha yar dabcan beriga dambe ee muslimiintu ay ardul xabash kasoo noqon doonaan, Madiina kusoo noqon doonaan, iyadu maysan soo raacin sababtoo ah waqtigan uu guurka markaa Ummi Xabiiba u dhacayo waxay ahayd markaa sanadkii 6aad ee hijrada ayay ahayd waqtigan. laakiin dabcan ardul xabash bay joogaan. sanadka bacdi sanadka 7aad ee hijrada ay markaa muslimiintu soo laba noqon doonaan. marka guurkii iyo meerkii rasuulka iyo Ummi Xabiiba muddo ilaa sanad ku dhow meelahaas ayaa markaa u dhaxaysay maadaama labada wadan ee aadka u kala fog ay kala joogeen. haddaba gabadhii adoonta ahayd ee Najaashi markaa Ummi Xabiiba uu soo siiyey, dabcan gabadha yar adoonta u shaqaynaysa kaliya muusan siinin, hadiyado kale ayuu markaa boqor Najaashi uu siiyey oo cambar iyo cuud iyo waxyaabo kaloo fara badan ayuu markaa soo siiyey maadaama dabcan boqorkii yahay. rasuulkuna hadda muusan ka codsanin, laakiin isagaa markaa siinaya. haddaba gabadha adoonta ah Ubruxa ayaa markaa la odhan jiray. iyaduna markaa islaamnimada ayay qaadatay oo xagga ardul xabash iyada joogta ayay markaa islaamnimada qaadatay. Ummi Xabiibana markasta waxay ku odhan jirtay oo xasuusin jirtay, Ummi Xabiiba markaad rasuulka aad u tagto rasuulka aniga xasuusi magacayga u sheeg, sidoo kale waxaad u sheegtaa inaan kuu khidmayn jiray oon ku adeegi jirina u sheeg ayay markaa Ummi Xabiiba mar walba ku odhan jirtay. berigii dambe markaa sanadka bacdi markii Ummi Xabiiba soo noqotay ee rasuulka u timid ay markaa gabadhii yareed adoontahayd markaa Ummi Xabiiba rasuulka uga sheekaysay. markay sida uga warantayna rasuulku uu dhowla cadeeyay, wuu qoslay, wuuna u duceeyey markaa gabadha yar dabcan kumanaanka meel ka fog. sidaas ayay markaa arrinteedu ahayd. ibnu Sacadna markaa wuxuu soo warinayaa Abu Sufyaan haddaba markii uu maqlay in gabadhiisii Ummi Xabiiba oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu guursaday, markii uu maqlay in Abu Sufyaan markaa arrintaas markuu maqlay uu ku farxay. kelmado yar oo erebixin waqtiga carabta isticmaali jireen oo dabcan farxadiisa ka matalaysana markaas uu ku hadlay oo uu yidhi. waqtigii dambe ee markaa Ummi Xabiiba ay soo noqotay ee dabcan waftigii markaa Jacfar la socday ee Abisiiniya markaa ka yimid ee Madiina markaa ku soo noqday ayaa markaa dabcan Ummi Xabiiba la socotay muddo ilaa 3 sano ah. dabcan rasuulka way wada joogeen sababtoo ah waqtigaas sanadka 7aad wixii ka dambeeyay ilaa 3 sano iyo meelahaas wax yar oo dheer inta ka bacdi rasuulka dhiman doona. haddaba waqtigaas haddaba ay muddada ay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay la qaadatay waxyaabaha la soo wariyay waxaa ka mid ah waqtigii heshiiskii Xudaybiyah markaa Qurayshta ay jabiyeen ee Abu Sufyaan intuu aad iyo aad heshiiska la jabiyay uga xumaaday uu doonayay bal heshiiskii in la adkeeyo ee isaga oo kaliya markaa intuu yimid Madiina markii koowaad Madiina yimid isagoo doonaya in arrinta heshiiska uu kala hadlo. markii koowaad wuxuu sameeyey gabadhiisa ayuu markaa kusoo dabayo wuxuu yimid gurigii markaa Ummi Xabiiba gabadhiisii ayuu markaa yimid. Abu Sufyaan markaa wuxuu islahaa gabadhaadii Ummi Xabiiba ee jeclad inta u tagto oo iyada markaa hore arrinta ka dhaadhiciso adigoo markaa iyada rasuulka u soo maraya arrintan heshiiska markaa rasuulka ka soo dhamee muddo aad u badan oo dabcan ilaa la oran karo 10 sano ku dhowna gabadhiisa markaa muusan arag sababtoo ah waqtigii Maka la joogay ee ardul xabash ay u hijroonayeen ee gabadhiisa ugu dambeysay. berigii dambena dabcan markii ka soo noqonayeen ardul xabashna Madiina bay markaa saxaabadu yimaadeen markaa muddo ilaa 10 sano ku dhow gabadhiisa muusan arag. sidaa darteed haddaba markii uu gurigeedii uu yimid Ummi Xabiibana dabcan maysan ogeyn markaa in abaheed imanay maysan ogeyn. markii haddaba uu yimid xogaadii markaa la swareystel ee la hadlay ayaa markaa wuxuu yiri haddaba markaa bal fariiso buu yiri gurigana markaa hal fresh baa yaalay. gurigii ma wuxuu yiri markaa halka freshka ku fariiso buu yiri isla markadii markaa gabadhiisa Ummi Xabiiba markaa freshkii markaa inta ka laabtay markaa ka qaaday. markaas ayaa Abu Sufyaan aabaheed markaa intuu yaabay ku yiri intuu gabadhiisa la hadlay buu yiri maanigaad ii diidaysaa freshka anigaad iga badbaadinaysaa freshka mise freshka laftiisa aniga iga badbaadinaysaa freshkaad ii diidaysaaba macnaha maanigaad dhowraysaayo ood leedahay meeshan uma qalantid inaad ku fadhiisato meeshan aad dhowraysaayo ood leedahay uma qalantid inaad ku fadhiisato. markaas markaa gabadhiisii Ummi Xabiiba ay ku tiri halkani waa meeshii oo rasuulku u fariisanayay oo waa meeshii waa dacsadii ama sajaadii oo kale ama fresh bas ka dhaw adu waa meeshii oo rasuulku uu ku fariisanayay waana meeshii rasuulka Ilaahay weeye adiguna waxa tahay qof kaalo oo najaasa ayaa tahay.
sidaa darteed dabcan lagama yaabo inaad markaa meeshii iyo gogashii rasuulka aad ku fadhiisato lagama yaabo. Abu Sufyaanna markuu dabcan arrintan iyo dhacdan arkay ayuu intuu aad iyo aad ula yaabay ayuu xataa arrintii u socday iyo arrintii heshiiska ahayd ee u socday oo islaha gabadhaada u soo mar ayuu yiriba haddii arrinta halkaa marayso macnaha heshiis aad gabadhaadii kala hadli karto ood odhan karto rasuulka igala hadal maba jiro. markaas ayuu intuu xogaa hadallo ku turay markaa iskaga baxay. dhacdaas oo dabcan inoo muujinaysa jacaylka iyo qadarintii markaa Ummi Xabiiba ay rasuulka sallallahu alayhi wasallam u haysay. Ummi Xabiibana dabcan axaadiis kooban oo ilaa 12 xadiisa ay markaa soo warisaa. axaadiistaana waxaa kamid ah xadiis markaa aad iyo aad u qurux badan ay markaa Ummi Xabiiba ay soo warinayso. xadiiskaasina waxa uu leeyahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri qofka maalintii tukada 12 ragcadood oo sunno ah oo waajibka markaa ka baxsan qofka maalintii tukada jannada waxa looga dhisayaa qasri ayaa jannada looga dhisayaa. Ummi Xabiibana waxay tiri ma laga soo bilaabo maalintii aan rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiiska ka maqlay ilaa maantadan ma joojinin oo macnaha marra kama tagin inaan tukado mooyee 12 ragcadood macnaha maalintii aan maqlay ilaa maanta 12 ragcadood waan tukadaa. xadiiskana waxa markay dambe iyadana ka sii wariyay walaalkeedii ka yaraa ayaa markaan ka sii wariyay. walaalkeed oo markaa Camar la oran jirayna waxa uu yiri laga soo bilaabo maalintii aan walaashay xadiiska ka maqlay ilaa maanta 12 ragcadood waan tukadaa. sidoo kale Nucmaan oo isaguna markaa Ummi Xabiiba walaalkeed ka sii warinaya isaguna waxa uu yiri anaguna laga soo bilaabo maalintii aan xadiiska maqlay ilaa maanta ma joojinin ilaa aan tukado 12 mooyee. xadiiskana dabcan isaga oo leh silsilad aad u qurux badan ay haddana silsiladiisa waxa u sii dheer in qof walba oo xadiiska silsiladiisa ku jira oo soo warinaya inuu lahaa marka laga soo bilaabo maalinta aan maqlay ilaa maanta 12 ragcadood waan tukanayay. sidoo kale isla hooyadan Ummi Xabiiba ayaa markaa soo warisay xadiis kale oo ay markaa ku leedahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri qof walba oo tukada 4 ragcadood oo duhurka ka horeeya iyo 4 ragcadood oo duhurka ka dambeeya qofkaas jahannama iyo naarta jahannama xaraam ayaa laga yeelaya waa laga xarimaa. xadiiskan dabcan wuxuu kamid yahay axaadiista sharaxa 12 ragcadood ee sunnaha ah wal inkastoo lagu yar kala duwan yahay qaar ay dhahan 10 qaar ay 12 dhahan marka kuwa aragtida ornaysa 12 ragcadood xadiiska markaa kala sheegaya xadiiskana markaa kamid ah طبعا salaadaha rawaatibta ah ee markaa sunayaasha ahna qofka kolba markaa hadii aragtiya kala duwan iyo riwaayadaha kala duwan dabcan kolba tii markaa uu doono uu qaadan karaya maxay markaa iyadu waxay oran jirtay muxuu ahaa doorkan waa in 4 laga horeysiyo 4 laga dambeeysiyaa. halkaana dabcan waxa noogu dhamaaday hooyadeeni markaa sagaalad balka noogu dhamaatay oo ahayd Ummi Xabiiba Ramla bint Abi Sufyaan. طبعا waxaan rajaynayaa sagaalka hooyo in hadda soo qaadanay inaad sagaalkaasba magacaantoodii iyo mid walba muxuu ahaa adu macluumaad yar oo kooban oo ku saabsan iyo muxuu ahaa iyo xogteeda oo dhameystiran oo inta ugu muhiimsan dabcan inaad wada garanaysaan sagaalka hooyana haddaan bal imikana aan mar labaad ku laba celiyo bal qof walba oo fiidiyoga daawanaya bal niyadda markaa ay kala akhriyo in sagaalkoodiiba dabcan uu magacaantooda si fiican u wada garanayo. haddaan bilaabina kow Khadiija bint Khuwaylid, Sawda bint Zamca, Caaisha bint Abi Bakr, حفصة بنت عمر، زينب بنت خزيمة، أم سلمة أما هند، زينب بنت جحشي يلا إن منطقة قادرني أو كلا جويرية بنت الحارث يسودا كلا محي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. طبعا إن شاء الله لبا حلقات كبعضنا وحن رجينا إن هذا دمين دونه حاسس كرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه دمين دونه رجينا طبعا هرنا من السوشيال شغني لبا حلقات كبعض مركنا دمينه إن الامتحان كي أينو إن شاء الله إنه سكاق عيدونه امتحان كي كنا سؤالود أو كنا دقيقة قاب كلوجري إن يرى سامبل أحقف كي وبعن كل طبعا إسكود مدتكم معها وحلقة جوجل فامسكا waxay imtixaan ku galay dad ku galay inaysan jirin baa laga yaabaa. marka labada xalqood markaynu qaadano aynu video yar oo kooban aynu ka warramayno Google Forms-ka qaabka imtixaanka u galin iyo sample yar link baan idin wadaagi muxuu ahaa qaabka aad uga shaqeynaysaan maadaama choose ama ka dooro u yahay kaas insha Allah waan idin wadaagi doonaa. sidoo kale runtii hal qodob waan baraarujin lahayo waxa dhaxday imika kulli commentiyada waan akhriyaa xalqadii imika u dambeysay xalqadan imika aynu ku jirta tii kooreysa iyo xalqad kale aan filayaa inaan meelaha qaar oo kale intaan horta markaan si guud u sharaxo laakiin ereybixinta af Soomaaliga ee saxda ah ku haboon ayaan markasta aan ilaa laba xalqood baan xasuustaa inaan khalday. dabcan sababtuna waxa weeye siradan aan hadda anigu aan soo gudbiyo meesha sourciga ah in ka soo qaadanaya dabcan af Carabi kuma qorra oo shaqayaas qaadi dabcan af Ingiriis ku qoran tahay anigu markaan soo qaadanayo maadaama af Ingiriiska aan ka soo guurnayo af Carabi aan ka soo qaadanaynin dabcan waxa luuqaduhuna waxaad ogtihiin xaq ereybixinada markay timaado waa lagu kala duwan yahay. imika salahan
marka af Soomaaliga iyo af Carabiga la eego inay bixinta marka timaado waxyaabo fara badan baynu Carabiga iska midnahay laakiin luqadda Ingiriiska marka timaado waxa jira inay bixino fara badan oo luqadda Ingiriiska aan ku jirin tusaale ahaan luqadda Ingiriiska tusaale ahaan adeerka iyo abtiga hal eribo wada isticmaala sidoo kale in adeerka iyo in abtiga hal eribo wada isticmaala habaryarta iyo eedida hal eribo wada isticmaala dumaashiga iyo sidiga sidoo kale hal eribo wada isticmaala marka maadaama dabcan inta aan sheegay oo dhan af Soomaali ahaan oo kaawanay way kala duwan yihiin Carabigana waxaan filayaa inay kala duwan yihiin laakiin anu maadaama marka Ingiriis aan ka soo qaadanayo mararka qaar inta aan sheegay aan isku dhaxlaalaaqa meel ay ahayd inaan salahan aan dhaho dumaashiga oo kale ayaan oranayaa sidi meel kale ahayd salahan inaan adeer dhaho in abti oranaya meel ahayd inaan dhaho salahan kale eedo ayaan habreer oranaya marka meelaha qaar marka laakiin aan si guud u sheegaya anigu sidii guud u sharaxaya ayaan hadana erbixinta marka timaado ayaan yar khaldaya meelahan insha Allah waxaan rajaynayaa inaad kulli idinkuna aad iska fahmisaan walaalahayna way fiican yihiin qaybta commentiga dabcan si fiican bay ugu soo qoraan ana marka daman ogaada inaan meelay aan istamariyo sidoo kale xataa erbixinadaas marka lagu kala duwan yahay oo marka timaado Soomaaliga iyo Ingiriiska iyo Carabiga waxa kamid ah salahan ereyada geela la xiriiro kale ereyada geela la xiriira af Soomaaligeena erey fara badan baan u kala isticmaalaa iyo erbixino kala duwan oo salahan waxaan dhahnaa neef waxaan neef geela mar waxaan hal mar waxaan awr mar nirgoyn ornana intaas erbino ornana laakiin dabcan luqadda Ingiriiska inay jiraan baa laga yaabaa laakiin maadaama uusan geelay waxba aan iyagu dhaqan u lahayn dhammaan waxa dhan nirgaha awrta halaha waxa wada kameels ayuu sheekhu wada ornaya marka wixii dhan wada kameels wada dhaho aniguna marka aan doonay in af Soomaali ka dhigo hadaan wixii dhan wax walba hadaan geel aan dhaho dabcan wax erey bixin sax ma noqonayso taas oo kalena xataa meelaha qaar waxaan filayaa inaad ku aragteen kale qaybta commentiga ayuu walaalkeen imika ma xasuusto wiil baa markaa wixii soo qoray yiri markaas oo kale adiguna si guud u sheego waxa tiraahdaa waxa isticmaashaa erey bixinta ah neef geela marka qofkaasina qof wanaagsan baa fikrad wanaagsan bay soo bandhigay kuwan imika markaan sheegayo mar walba neef geela uma dhahaa mar walba neef geela dhaha markaas insha Allah meelaha yar ee khaladka ah ee saas oo kale u dhacana wallahi sanadsan idinkuna waxaan rajaynayaa kulli inaad fahmisaan insha Allah dhimaantiin badbaadin salaamaya النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا